nabaday daawadayaal warbixintan oo ka warramaysa nolosha shimbirka tukaha waxa aynu ka helaynaa laba faa'iido oo muhiim ah. kow, muhiimadda ay leedahay in qofku aanu ku go'aan qaadan hal dhacdo, iyo arrinta cilmiga ah oo ah garaadka uu shimbirka tukuhu dheeryahay xayawaanada kale badankooda. Sannadkii 2002 saynis yahano ka tirsan jaamacadda Oxford oo dabagal ku sameynayay nolosha tukaha ayaa waxaa dareenkooda si la yaab leh u soo jiitay tuka dhadig ahaa oo xeelad la yaab ku noqotay u qadhaabanaya. Tukahani waxa uu doonayay inuu la baxo waslad yar oo hilib ah oo ku jirtay gunta hoose ee quraarad dhululuba ah, laakiin nasiib darro madaxa ma uu gelin karayn oo weelku waa uu dhuubnaa. Cabbaar isku dayay inuu la baxo oo u suurtageli weyday kadib waxa uu tukihii afkiisa ku soo jabsaday taar yar oo ka mid ahaa dhismaha qafis uu lahaa oo ku dhowaa. Kadib isagoo adeegsanaya afkiisa, cagihiisa iyo xitaa wax kasta oo ka ag dhowaa ayaa uu tukihii soo laabay mid ka mid ah labadii dacal ee taarka. Dhinacii toosnaa inta uu afkiisa ku qabtay ayaa uu dhinacii sida hangoolka u soo qalloocay uu ku dhaadhiciyey quraaradii, waxaanu ku soo qabsaday wasladii yareed ee hilibka ahayd ee uu la bixi kari la'aa. saynis yahanadii waxaa jahwareer iyo u qaadawaa ku riday awoodda garasho ee tukahan u suurtagelisay inuu xalliyo dhibaatadan ka hor timi. waxa ay qaar badani markiiba aamineen waxna ka qoreen in tukahan oo ay biiti u bixiyeen uu leeyahay garaad u gaar ah oo la mid ah garaadka bani'aadamka, kaas oo sabab u ah inuu hal abuuro xeeladan uu ku qadhaabtay hilibka. laakiin dhowr sano kadib ayaa cilmi baadhiso kale lagu ogaaday in tukaha nooc ka mid ah oo ku nool jasiiradaha New Caledonia uu caado ab ka ab ah u leeyahay inuu qoryaha iyo wax kasta oo jilicsan afka hore u soo xoodo si uu ugu adeegsado soo urursashada cuntada. natiijada dambe ee la ogaaday ayaa meesha ka saartay aaminsanaantii hore ee ahayd in tukahani uu leeyahay garaad mucjiso oo u gaar ah, waxaanay waxba kama jiraan ka dhigtay natiijada ay saynis yahanadaas hore ogaadeen, taasoo calaamad u noqotay muhiimadda ay leedahay inaan hal dhacdo lagu go'aan qaadan karin. si kastaba ha ahaatee, caadada tukahan jasiiradaas lagu arkay ayaa noqotay arrin iyada qudheedu saynis yahanada u iba furtay inuu jiro garaad ka dheeraad ah xayawaanada kale badankooda oo uu tukuhu leeyahay. waxaana halkaas ka bilowday baadhiso cilmiya oo lagu ogaanayo garaadkaas iyo sababaha uu tukuhu ku yeeshay awooddan garasho ee u gaarka ah. dabeecadaha la yaabka leh ee lagu arkay tukaha intaas kuma koobna. dhowaan koox cilmi baadhayaal ah oo ka tirsan jaamacadda Vienna ee dalka Austria ayaa cilmi baadhis uu joornaalka PNAS faafiyey waxa ay ku ogaadeen in tukuhu uu awood u leeyahay inuu dareenkiisa cadho ama murugo ku tallaalo saaxiibadiisa kaaga dhow, taas oo ah dabeecad uu aadamaha la wadaago. Marjan Tube.